السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وده أدي هذا ومهتسنتهين ما أنت وثلاثة وأنا شني لبعتك مش كوبيت وانا نوفمبر سنة كلبا كون يا شني لبعتك muuqaalkan waxaan rabaa inaan idin wadaago mid ka mid ah shantii qof ee Soomaalida ahayd ee dambigii kiiskii Freedom of Future lacagtii musuqmaasuq ahayd lagu helay horaantii bishii June ee sanadkii 2024 oo ah qofkii ugu dambeeyay ayaa shalay la xukumay. Haddaba imisa sano ayaa lagu xukumay? Dacwad-oogayaashu imisa sano ayay dalbanayeen? Qareenkiisu imisa sano ayuu dalbanayay? Isaguna muxuu ka horyiri maxkamadda? sidoo kalena garsooruhu markii ay xukumaysay maxay tiri arrimahaasi oo idil ayaan idinla wadaagaya. sidoo kalena qofkii 78aad ayaa shalay dacwad lagu soo ogay kiiska Freedom of Future, waana wiil Soomaali ah oo isaguna sheeganayay inuu cunto siinayay dad ka badan dadka degan meesha uu sheegayay inuu September sanadkii 2022 wali baaritaanka waa uu socdaa. laba maalmood ka hor qofkii 77aad ayaa dacwada lagu soo ogay, shalana qofkii 78aad ayaa dacwada lagu soo ogay. marka waxaa jirtay in 7 qof oo Soomaaliya la maxkamadeeyay horaantii sanadkii 2024 ee hore ee dhamaaday. 7daas qof 5 kamid ayaa dambi lagu helay, 2na waa lagu waayay. walow markii dambe 2daasi lagu waayay mid kamid ah oo Saciid la yiraahdo Faarax in isagu uu kiiskii laaluushka ee xerbegtida la doonayay lacag in la siiyo uu isaguna lacag 200 kun uu ku lug lahaa, haddana xabsi uu ku jiro aan wali la xukumin. haddaba marka shantii qof ee dambiga lagu helay ayaa xukunkooda uu socday. 4 kamid ah horey ayaa loo xukumay. 4ta horey loo xukumay waxaa kamid ahaa Maxamed Ismaaciil oo isagu ku eedeysnaa 4 dambi oo 3 kamid ah lagu helay. qofkii ugu horeeyay ee la xukumo ayuu ahaa bishii October ee 15 sanadkii 2024 ayaa lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah. waxaa sidoo kale soo raacay Mukhtaar Shariif oo isaguna 6 dambi ku eedeysnaa oo 4 lagu helay oo 210 bilood oo 17 sano oo xabsi ah iyo bar waliba lagu xukumay bishii January 24 sanadkan 2025. waxaa sidoo kale soo raacay Cabdicasiis Faarax oo isagu ninka ugu dambiga badan ahaa. 24 dambi ayuu ku eedeysnaa, 23 kamid ayaa lagu helay bishii August 6 ayaa sanadkan ayaa 28 sano xabsi lagu xukumay. waxa ugu dambeysay gabadha kaliya ee 5 qof ee dambiga lagu helay ku jirtay oo Xayaad Maxamed Nuur oo iyadana 5 dambi ku eedeysneed oo 3 lagu helay, iyadana waxa lagu xukumay ku dhawaad 4 sano oo xabsi ah. marka Xayaad Maxamed Nuur walaalkeed Cabdimajiid Maxamed Nuur ayaa shalay la xukumay oo ah qofkii ugu dambeeyay 5taasi qof. marka waxa garsooraha maxkamadda Nancy Brassel ee shalay 10 sano oo xabsi ay ku xukuntay Cabdimajiid Maxamed Nuur oo kamid ah 5tii eedeysane ee bishii June horaanteedii sanadkii 2024 lagu helay inay xadeen 47 milyan oo kamid ah lacagtii xilligii coronavirus-ka dawladdu ay ugu tala gashay caruurta in cunto lagu siiyo. waxaana sidoo kalena xeerlaaliyaasha gobolka Minnesota ay sheegeen in musuqmaasuqaasi uu ahaa mid aad u ballaaran oo ururka aan faa'iido doonka ahayn ee Freedom of Future oo ahaa musuqmaasuqii ugu ballaarnaa oo ay sameeyaan oo malaayiin dollar oo lacagta canshuur bixiyaasha ah lagu xaday. Cabdimajiid Maxamed Nuur waa 24 jir, waxaana noqonayaa qofkii ugu da'da yaraa ee kiis lagu soo ogo, iyadoo sidoo kalena kiiskan qofkii 78aadna uu jiro oo hadda shalay isaguna dacwad lagu soo ogay. gadaal ayaan idinkala wadaagi doonaa ilaa iyo markii ay bilaabatay in dacwad lagu soo ogo dadka kiiskan Freedom of Future ku lugta leh bishii September ee sanadkii 2022. waxaa sidoo kale jirta Cabdimajiid inuu kamid yahay dadka ku eedeysan inay isku dayeen laaluush inay siiyaan mid kamid ah xeerbeegtidii kiiskooda go'aan ka gaaraysay. arrintaasina wali isaga waa ay u dhiman tahay in go'aan laga gaaro. marka dacwad ogayaashu waxa ay dalbanayeen in Cabdimajiid lagu xukumo 14 sano oo xabsi ah, laakiin qareenkiisa oo la yiraahdo Edward Sabon isaguna waxa uu dalbanayay in 7 sano oo xabsi ah lagu xukumo. laakiin garsooruhu
mid dhexdhexaada ayuu qaatay maadaama dacwadoogayaashuna 14 sano ay dalbanayeen qareenkiisuna 7 sano uu dalbanayay 10 sano ayuu ay garsooruhu ay ku xukuntay waxa ay dacwadoogayaashu ay sheegeen in Cabdimajid Maxamed Nuur uusan kaliya u dubdhaxaad u ahayn musuqmaasuqaasi laakiin door weyn uu ka ciyaaray in uu sameeyo dokumentiyo been abuur ah si uu ugu soo dirsado Feeding Our Future-na wasaaradda waxbarashada ay ugu soo dirto sidaasina lacagtaasi ay ku helaan waxa dacwadoogayaashu ay xaqiijiyeen Cabdimajid Maxamed Nuur ma uusan ka qayb qaadan musuqmaasuqan oo kaliya laakiin maalin kasta ayuu ka qayb qaadanayay si musuqmaasuqaasi loo sameeyo dacwadoogayaashu waxay sidoo kale sheegeen in walaashii oo iyadana ku dhawaad 4 sano lagu xukumay bishii 8aad dhamaadkeedii ee sanadkan in uu shaqaaleysiiyay si ay uga caawiso in dokumentiyadaasi been abuurka ah ay samayso walaashii oo 28 jirana ku dhawaad 4 sano ayaa bishii 8aad dhamaadkeedii lagu xukumay 26keedii sidoo kalena waxaa qareenkiisa Cabdimajid oo la yiraahdo Edward Sabon oo isaguna bal ka warbixiyay ninkan muxuu sameynayay muddadii uu xabsiga ku jiray waxa uu sheegay Cabdimajid ma doonayo in uu abiil ama racfaan ka qaado in talaabooyinka uu qaaday ee xun ama xukunkan mas'uuliyadeedana waa uu qaadanaya ku lug lahaanshihiisii musuqmaasuqan waxa uu sheegay intii xabsiga uu ku jiray ku dhawaad muddo 18 bilood in uu iska diiwaan geliyay galaasyo oo ah programming I think dhinaca computerka inay tahay isla markaana sidoo kalena intii uu ku jiray xabsiga Sherborne County Jailka uu qorsheynayay in uu wadadaasi saxan uu qaado isla markaana uu noloshiisa wanaajiyo haddii xabsi federaal loo wareejiyana sidoo kale wadadaasi saxan ayuu ku sii socon doonaa waxa uu qareenka Cabdimajid uu sheegay Cabdimajid wax kasta oo sax ayuu sameeyay si noloshiisa dhinaca wanaagsan uu ugu soo wareejiyo arintaasina waxay fariin u tahay inuu doonayo inuu sii wado in wadada saxan uu sii qaado waxa sidoo kale qareenka Cabdimajid uu sheegay in qofkan uu u doodayo uu dagaalkii sukay ee Soomaaliya ka soo cararay isagoo 4 sano jir ah isla markaana faqiirtinimo ee hooyadii ku soo korisay isaga iyo 7 walaalo ah oo la dhalatay aabihiina waxa uu dib ula midoobay isagoo 14 sano jir ah waxa uu sidoo kale sheegay in qareenku uu sheegay in Cabdimajid uu ciidamada Mareykanka uu ku biiray isagoo 17 jir ah waxa uu kamid ahaa cutub in loogu talagalay in markii coronavirus-ka uu dilaacay in ay dadka caawiyaan maalmihii u horeeyay intay musuqmaasuqan uusan ku lug yeelan marka qareenka Cabdimajid waxa uu sidoo kale sheegay in Cabdimajid markii hore uu doonayay inuu dambigiisa qirto oo kiiskan la xiriira laakiin waxa uu go'aansaday in maxkamad la aado oo maxkamadaasi wixii uu ka helo uu sidoo kalena ay noqoto laakiin maxkamadii ayuu tagay dambigiina waa lagu helay waana tan hadda la xukumay waxa uu sidoo kale Cabdimajid garsooraha uu ka hor sheegay uu ka hor qirtay waxa uu yiri garsoore hortaada ayaan taaganahay iyadoo qalbigayga ay ka buuxdo shalayto Cabdimajid waxa uu garsoore Nancy Brassel uu u sheegay waxa uu yiri ma bedeli karo waxyaabihii aan horay u soo sameeyay dibna uma soo celin karo waxa uu sheegay in sidoo kale uu ka shalaynayo dhibaatadii uu isagu sababay waxana uu sheegay in hadda uu doonayo in wada wanaagsan ama dooq wanaagsan uu yeesho waxa uu sheegay in uu qaadanayo dhammaanba mas'uuliyadda tilaabooyinkii xumaa uu isagu sameeyay marka garsooruhu laakiin arintaasi ma aysan ka dhageysanin oo waxa ay tiri marka dadku ay arkeen dhibaato oo ay ku carareen inay caawiyaan mina xilligii coronavirus-ka dhibaato ayaa dhacday qof waliba waxa uu doonayay inuu gacan ka geysto sidii dhibaatadan looga bixi lahaa marka waxay tiri dadku dhibaatadaasi ayay arkeen waxayna u carareen inay caawiyaan laakiin adigu lacag ayaad aragtay lacagtii ayaadna u carartay in aad xaddo sidaas darteed waxay tiri marka la eego xilligii coronavirus-ka halka la joogay iyo adigu waxa aad sameysay wax caqli gal ah ma ahan markii ay xukunka ku ridaysay marka waxa ay tiri waxyaabihii wanaagsanaa uu hore u soo sameeyay sida in ciidamada militariga uu qayb ka noqday iyo sidoo kale inuu nin dhalinyaro yahay arintaasi waxay tiri mid aan aqbalaya ma ahan sidaas darteedna waxa ay ku xukuntay muddo 10 sano ah oo xabsi ah waxa sidoo kale garsooruhu amar ay ku bixisay inuu dawladda dib ugu soo celiyo lacag dhan 47 milyan $920 iyo waliba $554 inuu dawladda uu dib ugu soo celiyo marka qofkii shanaad ayuu noqonayaa oo dadkii dambiga lagu helay Soomaalida shantoodiba Soomaali ayay ahaayeen horaantii bishii June ee sanadkii 2024 hadda shantoodiba waa la xukumay marka haweeneyda madaxda ka ahayd kiiska Feeding Our Future ay sidoo kalena Amy Back iyo Salim Saciid oo milkiilayaasha maqaayada Safari kamid ahaa iyaguna hadda waa xukun sugayaal maadaama dambiyadii lagu soo eedeeyay iyagana lagu helay bishii March bartamaheedii waxa sidoo kale jirta in qofkii 78aad
oo kiiskan Feeding Our Future ku lug leh dacwadda lagu soo oogay. saacado kadib markii la xukumay Cabdimajiid ayaa qofkii ugu dambeeyay ee dacwadan lagu soo ogo waxa uu ka mid ahaa oo maxkamad ka soo hormuuqday St Paul wiil la yiraahdo Cabdirashiid Biixi Dool oo Pelican Rapids Minnesota ka soo jeeda waxaana lagu eedeynaya Cabdicasiis oo 36 jir ah in cuntooyin been abuur ah uu sheegayay inuu bixinayay Moorwood iyo sidoo kale Pelican Rapids uu ka bixinayay waxa sidoo kale ninka la yiraahdo Cabdirashiid Biixi Dool hadda lagu eedeynaya in isagana uu qaatay oo xaday lacag gaaraysa 1.1 milyan oo dollar intii u dhaxaysay bishii March ee sanadkii 2021 ilaa iyo horaantii sanadkii 2022 waxaana sidoo kale in hadda uu noqday qofkii 78aad ee kiiskan Feeding Our Future lagu soo ogo. Cabdirashiid Biixi Dool waxa uu sheeganayay in 40,000 oo caruur ah uu quudinayo toddobaad kasta isla markaana uu bixinayay ilaa iyo 6,000 oo cunto oo kala duwan toddobada maalmood toddobaad kasta marka arintaasina waxa la leeyahay halka cuntada uu ku bixinayay dadka ku nool ayaaba ka yar dadka uu sheegayay inuu cunto siinayo 2 mar ay waliba arintaasi ka badan yihiin marka waa qofkii ugu dambeeyay hadda oo isaguna Soomaali ah oo waliba 78aad oo dacwad la xiriirta kiiskii Feeding Our Future lagu soo ogo walina baaritaanku waa socdaa marka ilaa iyo 100 qof miyay gaari doonaan ku dhawaad wali waxay leeyihiin dacwad-oogayaasha baaritaankeena waxa waaye faanole fari kama qodno oo waan sii wadnaa marka arrimahaasi ayaan rabay inaan idila socodsiiyo aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idinla sida iyo nabadgelyo